ardayda quraanka dhameysay waxaan kula dardaarmayaa quraanka waa gacan ku hayn wuxuu u baahan yahay inaad mar walba akhrisaan oo ku celcelisaan oo aad dadaashaan haddaadan akhrinin wuu ka lumaya marka markasta waa in quraanka gacanta lagu haayo la akhriyo la dhaqan geliyo taas ayaan kula dardaarmayaa macalinkiina aad u duceysaan salaad kasto aad tukataan inuu ilaahay u fududeeyo mas'uuliyadda ballaaran ee ah inuu soo saaro arday quraankii taqaano oo xaafidiin ah ardayda taasaan kula dardaarmayaa waalidiinta sharafta leh oo ayaguna aad iyo aad markaas fursadda wadkooda ugu hubiyay in barashada quraanka kariimka ee qolka eebe ayaguna waxaan kula dardaarmayaa insha Allah in ardayda lagu ilaaliyo quraanka ay barteen inaysan luminin sababtoo ardayga hadii la siiyo fursad dheeri ah waxa dhici karta inuu quraankii lumiyo oo uusan akhrinin marka in lagu daba joogo inuu quraanka akhriyo oo la yiraahdo akhri uu bartay kaliya ma ahan in uu marka lagu ilaaliyo inuu quraankii bartay oo uu si heesto haduu ilaahay yiraahdo insha Allah kalimadda soo koobaya waxaan leeyahay hambaliyo guud ahaan ardayda qalin jabisay ee quraanka noo baratay macalinka ustaad Sid Cali waa u hambalyeynaya waana u duceynaynaa insha Allah waxaan leeyahay dhamaantiin waa maasantiin insha Allah waxaan ku soo koobayaa kalimadeyda Ramadaan mubaarak insha Allah dhamaantiin